hay-adda jiis ayaa biyadhaamin u sameysay qaar ka mid ah dadka iyo dunyada ku nool deegaano ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wariyahayaga Khaalid Kacsi ayaa warkan nooga soo diray magaalada Beledweyne. hay-adda jiis oo ka jawaabaysa cabashada dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada abaareed ay ku haysato gobolka Hiiraan ayaa waxay hay-addu gurmad biyadhaamin u sameysay qaar ka mid ah dadka iyo dunyada ku nool deegaano dhowr ah hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. waxaana ka mid ah deegaanada hay-addu gurmadkan biyadhaaminta ay ka sameysay deegaanka Ganuun Rubad, Kaadilay, Inabaal, Jeejo, Qoryaqaad, Dibugal iyo deegaano kale oo dhowr ah hoostaga degmadaasi way ka jirto xaaladda ugu darneed ee biyo-la'aaneed abaarta ka jirta deegaanadaasi awgeed. ugu horeyn waxaa faahfaahin kooban si wadajir ah uga bixiyay deegaanada hay-addu gurmadkan biyadhaaminta ay ka sameysay wakiilka hay-adda GSA iyo mas'uuliyiin kale. أنا كهذا مجمع GSA Gurmad for Sustainable Aid waxaan joognaa maanta meel yiraahdo Ganuun Rubad oo biyaha gurmadka dhaaminta biyaha aan ku bilawnay deegaanka Maxaas aan maanta inoogu dambayso aan ku shubaynaa feeska koobaad. beriyahan oo dhan waxaan ku mashquulsaneen waxaan ka bilawnay Kaadilay, Galcad, Qoryaqaad, Tuubacad, Tuuba Gaduud, Uleyle, Tuutuule, Hiijo, Ganuun Rubadaan joogno, Ismaaciil Indhoole, Dibugal iyo Inabaal shalay jirnay Inabaal. marka hadda feeska koobaad intaas waayo waxaan rajaynaynaa inaan hawshaan gurmadka biyaha aan sii wadno intii karaankayna ah. waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu ummadda khayr qabo ummaddaan siiyo oo ilaahay mataqaanaa ilaahay deeqsii karo biyo oo ilaahay mataqaanaa ugu saqiro. hadduu ilaahay raalli ka noqdo meelihii loo baahdo GSA mar kasta waxay diyaar u tahay waxqabadka ummaddan oo loogu gurmanayo si wax loogu qabto insha allah. meesha horta waxa waayeen hay'adda GSA biyaha wadda degmada Maxaas ay ka shaqaysaa wax badan dalka ka qabatay intaas biyo ka shubtay wax badan noo qabatay haddana waxaan inoo sii nabad baarto ummadda saas u safanta kow ma joogto ilaahay muga hadda bili aadana gacan kuma gaarsi karo. hay'adda waxa ka sii laba codsanaynaa inay noo nabad baarto ay hadii ilaahay ilaa roob ka gaareen. sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay gurmadkan biyadhaaminta hay-addu ay ka sameysay deegaanadaasi ayaa uga mahad celiyay hay-adda GSA kana dalbaday inay sii laabaan gurmadka biyadhaaminta ah. hay'adda maanta meeshaan ka dhaaminaydo ilaahay idinkiisa waxaa la yiraahaa GSA la yiraahaa. maanta meeshaan ay hadda ka wada waa marka in badanna waa wada jirta hadana sidii sheegeen waa wadayaan ilaahay idinkiisa haweeney marka annaguna meeshaan aan joogno waxaa la yiraahaa Kaadilay waxaa ka jira baahiyaad u fara badan baahidaas oo biyana leh ay ugu daran yihiin. waa wadaxnay eri iyo dhaam iyo geel intaasaan watay berga waa wabxay horaanna fuuska biyaa waxaan neefka erga xooleyga u qaal badan ma guud. hay'adda BSA noo timid nimanka hoggaanka ahoo wada iyo hay-addaba waa u mahadcelinaynaa waana soo dhawaynaynaa gacno furan. intaa kadib abaaraan joognaa xaalufa xooluhu waa baaba'een. ugu mahadnaqaynaa mugga hore waxaan uga mahadnaqaynaa hay-adda biyaha noo keentay boqolkiiba boqol oo UBS aan uga mahadnaqaynaa mahadana ka gaarto. intaas waxa dheer baahidu weli waa sideedii. waxaan sheegaynaa in oonba aanu lahaayo na biyo na soo gaarsida daaqa hay'adda GSA biyahaas oo maanta ummaddu ma taqaanaa intii la u timid ay ilaahay mahadiisa ay xoogaa fiican ka heshay. hay'addaasna ma taqaanaa ay si wacan oo wanaagsan ay degmada Maxaas uga howl gashay. dhinaca kale nabadoon Raaga Dhaqane iyo nabadoon Xasan Cusub oo wehliyo oo ka mid ah odayada dhaqanka degmada Maxaas ayaa uga mahad celiyay hay-adda gurmadkan biyadhaaminta ah ee u sameysay dadka abaartu ay ku haysato nawaaxiga degmada Maxaas. waxaan u mahad celinayaa wax badan oo noo qabtay biyadhaaminta haddaan u soo laabto biyadhaaminta hadda bilowga hore waa lagu diirsan bilowgan kaleetana waa la rabaa dadkii
uu ku diirsado biyuhu weli ma kala gaarin dadka waxaan halkaan ka sheegaynaa NGO-ga la yiraahdo GSA inuu degmada Maxaas hore uga soo qabtay howlo badan oo kala gedisan isla mar ahaantaas waxaa jira xilli adag oo hadda xaalad lagu sugan yahay ummadii meesha joogtay biyo la'aan baana jirta waxa weeye dhulkii ma laha ceel badan oo ku filan NGO-gaani wuxuu hore u soo qabtana wax hadda la koobi kara ma aha Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaali News degmada Maxaas